halkan oo ah duleedka bari ee magaalada Buuhoodle waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafti ka socda Mataana Hawd oo ka soo kicitimay degmada Ceegaag. waftigan waxaa hogaaminayay gudoomiyaha Mataana Hawd Cabdi Xaaji Cali Cilmi Cabdiriigle waxaana kamid ahaa gudoomiyaha degmada Ceegaag Axmed Ciise Cawil dhalinyarada Mataana Hawd waxaana halkan ku soo dhaweeyay dhalinyarada Mataana Hawd ee dhigooda ee Buuhoodle cuqaasha waxgaradka iyo dadweynaha deegaanka Buuhoodle maanta soo dhaweyntooda aan u kala harin. waftigan ayaa loo galbiyay gudaha magaalada Buuhoodle waxaana inta badan lagu soo wareejiyay wadooyinka gobolka iyadoo markii dambe waftigan la isugu biyashubteen garoonka kubadda cagta ee xabada stadium football ku yaala Buuhoodle. ugu horeyntii waxaa halkan ka hadlay gudoomiyaha gudida Mataana Hawd iyo ku-xigeenkiisa Cabdi Xaaji Cali Cilmi Cabdiriigle iyo Caaqil Cabdi Samad Cali Xasan. waxaa halkan si weyn loogu mahad celiyay garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag Yacayn Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac iyo ergadii nabadeynta ay ka qayb qaadatay heshiisiinta Mataana Hawd. الله وبركاته دمان dadka xafladda jooga reer Buuhoodle ay u horeeyaan Mataana Hawd iyo cidii kale ka soo qayb gashay reer Buuhoodle ilaahay waa mahadle iyo dadkii maanta oo dhan bacadka taagnaa annagoo aad iyo aad uga runtii uga xun dadku inaanu ku daahanay haddaanu nahay garabka Mataana Ceegaag aad iyo aad baan idin salaamayaa dhalinyaro iyo waayeel odayaal waxgarad hooyooyin iyo dhammaan bulshaweynta bahda saxaafadda culimada iyo gudida Mataana Hawd caaqil u horeeya caaqil gudoomiye Cabdi Samad Cali xogeeyaha Mataana Cumar Cabdi Haaruun dhalinyaradii soo abaabushay xafladan quruxda badan iyo soo dhaweynta aan la soo koobi karin ee kalgacalka iyo qalbiga furan leh ee aan loo kala hadhin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa maalin farxadeed waana maalin weyn waa maalin farxadeed ilaahay baa inoo suuro geliyey wax badan baynu soo daadahaynaynay dhul badan baa loo maray waxaa laygu yidhi war Cabdiriigle xaflad baa tegaysaa maad soo labisatid adigu nabadaan ku labisanahay baan ku yidhi nabadda waxaan u malaynayaa ergaday ilaa saac dheer soconaysay nin waliba shaarkii iyo surwaalkii uu sitay iyo macawiistii inuusan iska bedelin waxaa weeye leeyahay dhalinyaroy idinkaa dee noo labisi karaa nabadaa lagu labistaa waxaa weeye haddaannu annagu soo shaqaynay oo aannu wax badan u marray oo ilaahay inoo suuro geliyey haddaannu nahay odayaashii iyo cuqaashii iyo isimadii iyo waxgaradkii kale nabaddii dee waannu idiin sidnaaye idinna naga guddooma oo naga qabto inoogu shaqeeya inoogu shaqeeya idinna ku shaqaysta kuwa ku shaqaysanaya ugu faraha badani waa idinka soo qabanna kuwaannu halgabayno aanu mustaqbilkooda rabno ee aanu mustaqbilkooda doonayna inay mustaqbil wacan yeeshaan oo ay yeeshaan waa dhalinyarada weeye rag iyo dumarba isimadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii ka soo shaqeeyey nabadgelyadan ee hormuudka u ahaa Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac waxaanu kale u mahadnaqaynaa reer Buuhoodle oo dhan iyo reer Sool oo dhan waxaa ahaydeen wax nabadda ka shaqeeyey wax jeclaa iyo wax ku farxay kulligiin waa mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaahayna waxaanu ka baryaynaa nabadgelyada uuna siiyey inuu noo xasiliyo oo mid waarta oo wiilkii gaadha ilaahay uu ka dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa nabadgelyada inuu inoo taam yeelo ilaahay ha inoo taam yeelo
mid caama oo deegaanka iyo gobolladeenna iyo Soomaali oo dhan gaadhay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mid waarta oo Soomaali oo dhan nabadgelyo ay hesho Allah subxaanahu wa ta'aala ha ka dhigo waxaynu Ilaahay ku mahadnaqaynaa nabadgelyadaas waxaynu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka shaqaysay oo ugu horeeyo Garaad Jaamac Garaad Cali iyo isimadii kale iyo cuqaasheenna iyo waxgaradka reer Buuhoodle iyo waxgaradka deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dhamaantood oo mahadnaqaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 12 dhalinyaro oo dhalinyarada mataanaha ka mid oo Buuhoodle joogta waxaana fududeeyay barnaamijkaas Salabaan Cabdi Xuseen oo ah labada dhinacba mataan ka tirsan labada dhinacba haddii aan loo garanayn Salabaan Cabdi Xuseen waa dhiga weyne ay jeex haddii naanaysaha la garanayo waxa weeye barnaamijka ninkaas fududeeyay oo labada mataanba ah taala bacdal mahad ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa ciddii hawshan bilowday Garaad Jaamac Garaad Cali ugu horeeyo ismadii kale ku xigaan cuqaashii labada garab oo khayr Allah siiyo juhud iyo dadaal galiyo guryahoodii iyo xilliyadoodii iyo timekoodii u bixiyay guushii aad u keenteen dhalinyarada mataanaha hawd waanu guddoonsanay guul iyo gobonnimada maanta muuqataana ka makhraati kacaysa waxaan leeyahay dhallinyarooy nabadda idinkaa laydiin keenay maantana waxa aynu joognaa waa Buuhoodle oo midnimada dhallinyarada bahahawd ku midaysan yihiin mataanahawd waxaan rabaa halkan inaan uga sheego dib baynu u dhacnay nabad darradu dib baynoo riday guri iyo goob iyo gogol baynu wada lahayn cidda maanta loo baahan yahay inay beddesho oo horumar u beddeshaa waa dhallinyarada soo dhallinyarada maaha waxaan maanta ilaahay mahadii haddii waalidiintii iyo waxgaradkii iyo odayaashii dabadeenna fadhiyey ay ina wada hor taagan yihiin iyaga oo jecel waxa ay naga muuqda ee nabadda maanta cabdidhigle waxay ugu dambaysay muddo hore oo fara badan inaannu isa salaanno maanta saakaa igu horraysayoo 10 sano dhadhow ismaanaan arag waxay ii ahayd arrin aad iyo aad iigu ah qiiro iyo farxad ilaahay baa mahadda iska leh waxaana maanta anigu halkan anigoo ku hadlaya magacayga Salabaan Cabdi Xuseen Dhagaweyne may ahayn ujeeddadaydu wax siyaasad leeyahay golahana ma taalo nabad baa ina wada deeqda kulligiin ladina gudanno markaan inta ka gudbay ilmaayrayaalow dadkiina waan soo dhaweeyay reer Buuhoodle waxaan dhexda ka maqlayay mataana hawd marka dhammaan dadkiina waan mahadsantiin waxaan leeyahay marka ha laga sii wado nabadii iyo wanaaggii way qaateen odayaashii si aad ogtiinba intay soo mareen dalkoo dhan yay nabadii qaateen way qaateen haweenkii oo waxay eegaag oo ugu dambaysay ayay ku qaateen haweenkii dhallinyaradeeda dhigayaga ah ee mataanaha hawd ee aan soo dhawaynaynay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaannu bogaadinaynaa oo ka mahad celinaynaa sida fiican ee ay u soo ajiibeen waxaan leenahay nabadda horey baa loo qaatay inaynu ku shaqayno oo maxaanku ilaalino un baa laynaga doonayaa waa ma qaadanna reer Buuhoodle salaanka bacdi hadal waxaan leeyahay mataanaha hawd hadal waxaan leeyahay reer Buuhoodle hadalka mataanaha hawd hawsheenni way dhammaatay dadka inaynu horumar u samayno oo ayna dabad galaan reer Buuhoodle uunbaa inoo hadhay ballan baynu leenahay dadka reer Buuhoodle waxaan u sheegayaa nabadgelyadu waa inoo wada dan nin walbana waa laga rabaa qisaasta iyo daacadnimada isjacaylkuna wuu inaga wada dhexeeyaa sida aad u soo xaadirteen danta reer Buuhoodle aan ugu soo wada xaadirno wassalaamu calaykum استعينوا على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان والسلام يا بلشوين ترير Buuhoodle ee soo dhaweysay walaalaha mataanaha hawd aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen ee aad u jeceshihiin nabadgelyada horumarka iyo midnimada dadka reer Buuhoodle aad baad u mahadsantihiin waxaan kale u mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh isimadii ugu horeeyay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ee ka shaqeeyay nabadgelyadan maanta halka maraysa
ismadaana waa u mahad celinayaa dhammaantood cuqaashi baan u mahad celinayaa ningarboodkii baan u mahad celinayaa arrintaa ka shaqeeyey waxaan u mahad celinayaa labada beelood ee walaalaha ah ee horumarka iyo nabadgelyada ku heshiiyey waxaan leeyahay ilaaha weyn ee waaxidkaa waxaan ka baryaynaa in uu inoo kordhiyo midnimada iyo horumarka iyo nabadgelyada intaa markaan ka gudbo shirku wuu inoo dambaynayaa xafladdani waxay daaran tahay in laysdhex galo oo maxaanku idhaahdaaye mataanahawd ay sida maaragtaa wiil iyo walaalkii isu maaragtaa laabta isu gashadaan insha allah bidmillaahi kariim midnimaa inoo ballama mataanahawdow horumar baa inoo ballana waxaa inoo ballana wixii aynu 15 sannadood muxuu ahaa kaga hadhnay dadka inaynu iminka kaga horrayno sannad gudihii wartaa ma ku ballannaa aad baad u mahadsantihiin waxaan idin xasuusinayaa dhallinyaroy qisadii ku dhacday labadii reer ee la odhan jiray aws iyo khasraj waxay ahaayeen madiinay degganaayeen laba reeroo waxay ahaayeen collaytamay markii dambe waxay gaadheen heer ah inay yidhaahdaan intaa nebigu saaxiibta siiyey inuu maaragtay ay gaadheen nin kastaa inuu ku yidhahdo xaaskaygaan kuu furaya adigane ku soo dhowow taad u baahan tahay gacmaha isqabsadeen way walaaloobeen way isdhex galeen ganacsigii baa dhex maray waxaa dhacday xitaa inuu mid ku yidhi kii kale walaalow maalkaaga iyo xaaskaaga allaha kuu barakeeye suuqaan aqaannaayo ganacsigaan aqaannaaye ganacsiga i tus inuu markaa suuqii geeyey oo ganacsi u furay oo suuqii geliyey marka waxaa laynooga baahan yahay horumar iyo isqabsi iyo iskarabsan marka waa soo dhowaynaynaa sharafta badan ee inta badan ay u taagnaydeen bacadka waxaan leeyahay rag iyo dumarba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaa loo baahan yahay annagu ka odayaal ahaan odayaal badan baanu ku wadnay dhallinyarada aad naga dalbateen mataanaha hawd anigi iyo gudoomiye cabdiriigle cabdi xaaj cali waxaan leeyahay nabaddii waad qaateen baahawd nabaddii waa qaateen baahawd nabaddii way qaadatay waxaa loo baahan yahay in la gaadhsiiyo beelaha kale ee dega gobolka buuhoodle oo layswada garabsado si loo helo buuhoodla mida buuhoodla waxtara buuhoodla waxqabad ah buuhoodla sharaf leh buuhoodle wax kastaa goyn kara waxaad wax ku noqon kartaan reer buuhoodlow nabaddaad wax ku noqon kartaan qofkii qoriga watoo la ilaaliyo la caydhiyo oo la yidhaahdo dhig qoriga maaha dadka dega meesha buuhoodle dadka dega maaha baahawd qura maaha 100 beelood baa dega waxaa ku dayasho mudan waxa wacan baa ku dayasho mudan war waxa wacan aad horseedeen ha laydinkaga daydee gaadhsiiya beelaha kalena aad iyo aad waxaan kaloo u mahad celinayaa labada beelood ee isku beesha ah ee fududeeyey ee maqlay ee u dhaganuglaaday ee wax kasta oo ergadu ay tidhaahdo haahee yidhi ee wax kasta oo caloosha iyo uurka ay ku haysteen ku liqay ayaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa wafdidii ballaadhneed ee dawlad deegaanka ka timi oo si aad iyo aad mug iyo miisaanle nabadgelyada uga qayb qaadatay waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka reer buuhoodle cid kasta uu yahay oo nabadgelyadaas ficil iyo qowl aan waxba u kala hadhin maanta soo dhowayntii aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan u sii mahad celinayaa salabaan cabdi xuseen oo maanta xafladdan dhallinyarada ku maamuusay salabaan waad mahadsan tahay waxaan leenahay dadka dhallinyarada wax haystaana ha ku daydeen oo geesinimo ha muujiyeen ugu dambayntiina labada beelood ee mataanahawd ayaa maanta halkan lagu saweeyey soo dhoweyntii abad uga ballaaneed ee ka dhacda magaalada buuhoodle halkan oo ah garoonka kubadda cagta waxaa ka dhacay shir aad u ballaadhan waa cali cismaan ismaaciil dhagjar wararka raadiyaha ee telefishinka SBC magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.